madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo socod tamashlaa ku dhex maraya gobolka Drôme ayaa kaamarooyinku duubeen isaga oo uu wajiga ka dharbaaxayo nin dhalinyaro ah oo ku dhex jiray shacab fagaarayaasha u soo istaagay si ay u salaamaan. Muuqaalka waxaa ka dhex muuqda nin ku dhawaaqaya Macron ha dhaco oo xiran muraayadaha indhaha, face mask iyo funaanad cagaaran kaasi oo si bareer ah u dhamanaashay madaxweynaha. waxaana si halhaleela gacanta ugu dhigay ilaaladiisa gaarka ah. Madaxweynaha ayaa kormeer ku marayay fagaarayaasha magaalada Firenze oo ku taal koonfur bari Faransiiska, taasi oo dhowaan laga qaaday xayiraadihii coronavirus. Qaar ka mid ah shacabka Faransiiska ayaa durba falkan dusha u saariyay dadka muslimiinta ee degan Faransa, walow aysan wax war ah ka soo saareen madaxtooyada Faransiisku. Hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ka mid ah siyaasiyiinta dunida ugu saameynta badan ayaa muslim nacayb ku sifoobay, waxaana cadaawad u qaaday muslimiinta oo idil haba ugu sukeeyaan kuwa Faransiisku kadib markii uu u gafay Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Muslimiinta Faransiiska ayuu u arkaa mintidiin xagjir ah oo ka soo horjeeda nabadgelyada wadankiisa, waxaana uu aaminsan yahay inay gooni ugoosad ka dhex wadaan gobolka. waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan siina faafi muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibada.